بابن آدم مركو كتغى الدنيا دان أو وريغو وح مالكي سي أو أنفعها يماله وح أهل أو أنفعها يرماله إلا أهلكو إن يكون أنفعان دعاء الدعيان يصدقاء يبحيان أميان مالك أنفعها يا ووحي هرمر صدي وح كلام في عمدا وح الله وحي قوارئها وحي دارها وحي أسقو خاص أهان وقول لبسنا دركي سيئة وقولي خاص كوحي يا ليئة مرة عيان من أنفعها يان هل كاسو قوئي إلهي وحي ليه مال كاس كهر يقفك وأقابل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومال أن عرور إيا مال وحبا أين ننفعه وحي إلهي وليه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وحنوتي مادين إذنكو كليئة سيدي مركي ورابا كليئة لغو أبوري وكليئة لهي أيا إذنكو كليئة نوتي مادين وحي آن إذن سينينا قدال با أغا صوتكتين سفر دير أيا لقابلية سهيدنا وايرتا ماشونا ميل لغا دمانا يا معها رحلadaas dheer oo muhiimka ah oo nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam haduu qofku dhinto amalkiisa inuu go'ahayo illa saddex mooyaan illa min sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u sadaqa jaariya wa masaajidaas wa madaristaas wa ceelasha waqafka oo la qodahayo wa waxyaalahaas caamka oo waqafka oo ilaahay loogu dhawaanayo qofku uu sameeynayo wa ilmi yuntafa'u bihi aqoonu laha dadka uu baray oo lagu intifaacayo wa walad salihah oo tarbiyay oo ku didaalay oo soo ducaynay saaxiibka koobaad oo ka haray waa ahalkii markay hareen waxa laga yaabaa inaynan ilaahay dambi dhaaf ku weydiinin maalna aynan ku soo sadaqayn mashquulna ay ku yihiin mar ay ooyahayaan oo murgayaan iyo mar ay ku dirirayaan wixii adigu aad ka dhimato oga tagtay oo ay qaybsanayaan bal waxa laga yaabaa qof ajnabi ah oo dhaxalkaaga aan waxba ku lahayn inuu kaaga nacfi bato waxa weeyaan caruurtaada iyo xaasaskaaga iyo ilmihii aad ka tagtay oo asagu markuu maqlay hebel waa dhintay saaxiib uu kala ahaa daraadeed ilaahay uu ku baryo oo uu kugu murugaysan yahay ilaahay ku weydiinaya ilaahay inuu ku dambi dhaafo ayaguna ay ku dirirayaan oo ku murmayaan oo kala boobayaan dhaxalkaagii ay mashquul ku yihiin bal waxa laga yaabaa ahalkaaga qaar ka mid ah cadow inay ku ahaayeen oo ay sugayeen geeridaada si ay maalka sida ay rabaan ugu tasarrufaan caruurtii ay yac ka oranaysay oo aad ka ilaalinaysay walaalihii aad ka ilaalinaysay haweenkii aad ka ilaalinaysay oo qof walba ciil inta la kala go'naa oo oranahaya odagu waa qani fakhri iyo dhibaatuna nagu haya allaw mu'adduuyada marka tago cadow inay yihiin oo aad iyo aad ugu farxayaan oo aynan kuwa murgahayn ayaa dhici karta ilaahay wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwwan lakum fahdharu waxa kamid xaasaskiina iyo awlaadiina waxa kamid kulligood ma aha waxa kamid kuwa cadow idin ee ka digtoonaad saaxiibkaas labaad oo maalka asaguna waa ka haray kuma raacin nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam yaqul ibn adam mali ibn adam wuxuu leeyahay maalkayga waa ku faanaya waa sheeganaya waa ku amaanaya maal buu leeyahay buu ku faanaya hantida uu leeyahay maalkayga ayuu leeyahay wahal laka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta fa amdayt ibn adam oo maalkan aad ku faanaysid miyaad ku leedahay illa wixii aad cuntay ama aad xiratay ama aad hormarsatay mooyaan wax kale miyaa ku leedahay xaqiiqadu waxay tahay maalkaaga waxa ku leedahay inta xala aad cuntay saaka aad ka cuntay bari aad ka cunaysid hadii ilaahay ku gaarsiiyo nolol marada aad ka xiranaysid gaariga aad ka wadatid
intaa yartaa oo kugu wareegaysa ayaad ku leedahay waxa akoonnada yaalla waxa daaraha ku jira waxa dhulka ku jira waxa beeraha ah adigu waad ka tegaysaa malihid inta aad ku nacfinaysid baa ka leedahay iyo wixii aad hormarsatay oo keli ah walidaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada su'aal buu weydiiyo wuxuu yiri ayyukum maalu waarithihi ahabbu ilayhi min maali qofkee maalka waaridka dhaxlaya maalkiisa ka jecel maalkiisa asagu uu gooni u leeyahay markaasay saxaabadu waxay ma minna ahadun illa wa maaluhu ahabbu ilayhi qof inaga midihi maba jiraba illa maalka asagu uu leeyahay uu jecel yahay midka dadku ay dhaxlayaan oo qaadanayaan wuxuu ka jecel yahay midka asagu qaadanayo leeyahay markaas nabigu yiri fa inna maalahu ma qaddam wa maalu waarithihi ma akh maalkiisa qofku uu leeyahay oo dhabta ah waa midka uu hormarsado midka uunan lahayn oo laga dhaxlayana waa midka uu ka tagay weeye ka asagu mal walidaalika qofka maal waxa uu ah midka asagu uu hormarsaday oo uu aakhiro geystay oo asagoo nool uu baxsaday baa maal u ah bacdu saalixiin baa waxaa lagu yidhi dadku maxay geerida u nacayaan qof kasta dhimashada waa necbi dil yidhi waa dhimanaysaa ama berri baa dhimanaysaa cunnada waa ka soomayaaba cabsi baa soo food saaraysa markaasuu wixii waxaa loo nacayaa waxa weeye litacdiimika addunya adduunyada weynaynaysaa oo kula weyn jacalta maalaka bayna caynayk maalkaagii baa waxuu taagan yahay indhahaaga hortooda markaasaa maalkan diidaysaa inaad faaruqdid oo ka tagtid haddaad maalkan hormarin lahayd waxaad jeclaan lahayd inaad ka daba tagtid oo qofku markuu maalka hormarsado wuxuu aaminayaa wax wanaagsan inay ka horeeyaan noloshaan oo dhan buu iska nacahayaa inuu horay u socdo ayuu jeclaanayaa laakiin markii uu maalkiisa u celcelinayo oo maalku hortiisa dhooban yahay inuu faaruqa ayuu nacaya oo ka dhinto saaxiibka saddexaadi waxa weeyaan camalka waa saaxiibka dhabta ah waa midka qabriga kula galahaya oo markii caruurtaadu ka tagta kugu harahaya waa midka maalkaagu markuu ka tago ka laabto kugu harahaya qabrigu kugula jooga ku faaruqi mahayo marka soo baxdina waa kala soo baxaya mawaaqifta qiyaamaha dhan buu kala maraya siraadka ayaad ku maraysaa miisaanka ayaa lagu saaraya jannada meesha ka degi lahayd ama qofku naarta meeshu ka degi lahaa waxa lagu qaybinayaa amalkaasa lagu dhifanaya lagu qaybinaya man amila salihan falinafsihi waman asaa fa'alayha qofkii amal salih sameeya naftiisu u daneey qofkii xumeeya amalkiisana naftiisa ayay ka go'aanta dushiisa yaat bal amalkaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala qofka inuu gobol u noqonayo man kafara fa alayhi kufru waman amila salihan fali anfusihim yamhadun qofkii gaalooba asaga dushiisa ahaatay sagay ka go'anta qofkii amal salih sameeyana naftiisa ayuu gogol xaaray oo gogol u dhigay amalkaagu wuxuu ku noqonayaa barkintii joodarigi go'i aad huwan lahayd meeshii aad seexan lahayd guriga aad degi lahayd amalkaaga ayaa ku noqonahay hadduu xun yahayna waa xumaaday gogol xun oo cadaab ah goox cadaab ah barkin cadaab ah guri cadaab ah ayuu ku dajinayaa hadduu wanaagsan yahayna waa ku wanaagsanaaday kulligood waxay ku noqonayaan nimco iyo janno walidaalika baa waxay ahlu cilmigu yidhaahdaan alcaaqil qofka caaqilka ah oo aan doqonka ahayn oo aan dabaalka ahayn ee caaqilka ah waa qofka waxa weeyaan guriga muddo dheer uu degnaanaya camiraha walowba ha ku camiro inuu soo gada gurigii oo mar dhow ka guurahayo adduunyada haba ku camiro qofka guriga uu og yahay inuu muddo dheer uu degnaanayo qofka guriga maal galiya oo camira oo juhdi ku bixiya hada huwa alcaaqil waa guriga qabriga weey walow haba ku kalifto inuu gurigu mar dhow ka guurayo adduunyada ah intuu iibiyo suuqa geeyo oo midka rasmiga ku camiraba ha gaartaan
walidaalika boqorkii la oran jiray boqor Khalid oo boqor Fahd ka horeeyay Sacuudiga ayaa waxa la yiraahdaa wuxuu soo booqday Calaamah ibn Uthaymin caalimkii culimada Sacuudiga kamid ahaa Mohammed bin Salih al-Uthaymin markuu salaamay oo gurigiisa ugu yimid buu la yaabay guriga qaab daradiisa iyo sidoo guriga burbur u yahay iyo sidoo guriga uusan ugu qalmin ninkan caalimka ah oo culimada waaweyn ah iyo guriga uu degan yahay buu la yaabay saysan munaasab iskugu ahayn markaasuu wuxuu ku yiri waxaan ku amrayaa xaafadaas in laga dhiso guri weyn oo caalimnimadaada munaasab ku ah dadka ay ku qaabishid fadhi weyn leh maktabadu ay kugu taalo guri weyn habaysan ah ayaan amrayaa in lagu dhiso markaasuu Calaamah ibn Uthaymin wuxuu yiri guri baa jira hawshiisa hadda aan wadno oo waxa weeyaa shaqadiisa dhismihiisa aan ku jirno oo mar dhowna aan u guuri doono xaafad heblana aan ka dhisayna ayaa jira iska daa waa yahay buu yiri iska daa dadkii sheekha xirtiisa ahaaba waxay yiraahdeen ya sheekh xaafada aalada guri baan ka dhisaynaa oo hawshiisa socoto oo gabagaba ah oo u guuri doona aaladaha anaga guri aaladaha kuma ogin xuyaa gurigaas markaasuu yiri xaafadaas oo xaafada maqbarada iyo quburuhu ku yaalaan maaha guriga aan dhisaynaa waa amalkan hadda aan wadno ayaa halka guri nooga dhisahaya asagaana u guuri doona oo degi doona asagaana rasmi ah sabtigii dhaweyto oo la soo dhaafay ayaa waxaan raacay diyaarad safar yar oo aan ku tagay gobolada meel ka mid nin baa dhinacayga fadhiyay ninka daadiisu 45 sano meelahaas waa nin ganacsada oo shaqaysta xajkii dhaweytana waa ku arkay sheeka markaan na dhex martay ayuu wuxuu yiri aniga karfantii la igu karfani lahaa waa ii diyaarsantaa meel bay taalo deyna la igu male waana ibsada karfantay oo waa yarta 45 sano ba jirtaan dhalinyaro ganacsadaha tahay أعمارتي نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم ويري أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 ومضى إذا عمري قيدوا لحدا إلى تضواتا وحدا فيابا إسكير عمري قيد تضواتا مركا لغا سوق قادوا الله وكم إذا حقا مريبين مثل كلام كل حجرا إني برهن نقضونتين إني سادة من نقضونتين مؤغي دينا إنا قات الديار معي كرفان تيدون وإيتا الله وحانا كوكوس تيبوي حمر وحا كدعي وأقوب شو قواهي مالي والبا oo saaxiibaday oo kala duwan mid iga yar iyo mid iga weyn iyo mid ila eg mid kasta intuu soo toosay asagoo shaqo u socda oo hamigiisu yahay waxa iyo waxa qabatid oo hadhowta lagu siday hilbihiisii bac oo fahmi ah marka aan arkay ayaan is aruuriyay buu daartan aad ka guuraysid oo aad hubtid inaad ka guuraysid ayna tanzilu qadan xagee degaysaa guriga aad degaysaa waa xagee guriga marka aad degaysid magacaagu uu harahayo oo lagu leeyahay meydka oo qaraaba aynan ku soo booqanahayn oo maalkaaga lala wareegahayo adiguna halkaas aad ku tahay maxbuus waa daartee wax dheer kaama faga waa meesha shala geysay walaalka adeerka saaxiibka qaraabadaadii meesha u sii waday ayaa maalmo yar laga yaabaa inay ku dhimanto ama ay saacada ay kaaga dhimanto ayaa laga yaabaa walidaalika ahli cilmigu waxay yiraahdaan i'mal lid-dunya ala qadri mukthika fiha adduunyada u amal falo u shaqayso inta aan nagaanaysid ku jaango wa'mal lil-aakhirah ala qadri mukthika fiha aakhirana waxaad u amal falataa inta aan nagaanaysid adduunyada waxaad nagaanaysid waa taqaana waxa laga yaabaa 100 ba waliga inaadan gaarin ku jaango marka waxa istiraahdaa 100 ba ka soo qaad waxaan aad haysid oo aad dhistay oo aad tabacday 100 maahana 100 sano ay sii soconayaan
soo gaabi marka maadaama ayadii waqtigeedii uu yar yahay inta aad nagaanaysid ku jaango aakhirana waxaad u camal fashaa inta aad nagaanaysid waa imisa waa meel aan laga soo laabanahayn haddii mar la aado khabarkuna uu tago aan laga soo laabanahayn meeqaan qaadnay oo geynay aan is aruurino aan ilaahay u toobadkeenno aan istikfaarta badinno aan cafis raadinno ciddii aan dulminay aan waxa aan haysanno ilaahay ugu dhowaana subxaanaه wa tacaala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين